Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waanigood leh. Welcome back with another new video lesson. Kusoo dhawaada mar kale 10 video cusub ah. Haddii aad channelka cusub tahay, magacaygu waa Baro Cabdiraxmaan. Intaa kadib, salaasadii hore ardaye cashirkii aynu qaadanay part 2giisa ama qaybtiisa labaad ayaynu maanta qaadanaynaa insha Allah. Marka isla socod wanaagsan. Haddaba ardaye cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ha isticmaalin kalimada no. Isticmaal kalimadahan soo socda oo loogu isticmaalka badan yahay maanta. Waxaa jirta run ahaantii in kalimada no maalin kasta dadku ay aad u isticmaalaan. Marka ardayda adinkana inaad dadkaas la mid noqotaan marabo oo aad noqotaan dad sanad kasta isticmaala kalimada no. Run ahaantii waxaan idila jeclahay inaad noqotaan arday update ah, arday ku hadla luqadda Englishka perfectly, fluently, sidoo kale arday ku hadasha kalimadaha daily use-ka, kalimadaha maanta loogu isticmaalka badan yahay, kalimadaha modern-ka ee casriga maanta la isticmaalo. Insha Allah anigana waxaan ahay qofkii idinla dadaala. Marka intaa kadib aynu iska bilaabano darsigeena let's go. runtii qof ku weydiistay garab oo ku yiri please I want you to help me, fadlan waxaan ka rabaa inaad caawisid. Qofkan caawimaad ku weydiistay inaad no uga jawaabtid runtii waa wax laga fiican yahay. Marka maanta waxaynu isla eegaynaa kalimadaha didmada ah ee ku habboon qofku yiri garab isii adna aad tahay isla mar ahaanta qof aan awoodin inuu qofka garab siiyo waqtiga iyo fursadaba aysan ku samaxayn. Sidoo kale qofku yiri casuumadeeda kaalay oo kaal ku soo dhiibay sida aad u qancin lahayd kalimadaha didmada ah haddana ixtiraam ku jiro ay maanta isla eegaynaa. Marka waxba aynu ku dheeraanan introga isla socod wanaagsan. Kalimada koowaad waa ka soo qaad xaafadiina daris ama jaar cusub baa idinla soo degay. Marka qof ka mid ah jaarkiina cusub baa wuxuu kugu yiri I don't know anywhere in this town, so I want you to show me where the market is because I want to buy something, so that can you help me with that bro? oo macnaheedu noqonaysa meelna kama aqaan magaaladan, marka waxaan rabaa inaad itustid meesha uu suuqa ku yaalo sababtoo ah waxbaan rabaa inaan soo iibsado, sidaa daraadeed ma iga caawin kartaa taas. I don't know anywhere in this town, so I want you to show me where the market is because I want to buy something, so that can you help me with that bro? Adigana isla mar ahaantaas waxaad tahay qof aan awoodin inuu caawiyo qofkaas ee weliba jaarkiisa cusub ah oo imtixaan baaba beri sugaya, weliba 2 maado ayaad galaysaa beri. Marka inaad suuqa soo tustid oo la soo marmartid meelaha magaalada la soo marmartid awood uma haysid. Marka adigoo aan isticmaalayn kalimada no rabana inaad ku tidhaahdid ma awoodo ayaad isticmaalaysaa qaabkan diidmada ah haddana ixtiraamka leh. I would love to help you, but right now I want to read and memorize more lessons because I have an exam tomorrow. oo macnaheedu noqonaysa waan jeclaan lahaa inaan ku caawiyo laakiin hadda waxaan rabaa inaan akhriyo oo aan xifdiyo 10 badan sababtoo ah beri waxaan leeyahay imtixaan. haye soo ma aragtid qofka waad qancisay adigoo diidmo siiyay weliba si ixtiraam leh ayaad u qancisay oo waxaad ku tiri waan jeclaan lahaa inaan ku caawiyo laakiin hadda waxaan rabaa inaan akhriyo oo aan xifdiyo 10 badan sababtoo ah beri waxaan leeyahay imtixaan. I would love to help you, but right now I want to read and memorize more lessons because I have an exam tomorrow. Marka kelmadena koowaad waxa inoo ah inaad isticmaashid phrase-kan ah I would love to help you but dash dash. I would love to help you but kelmada but waxaad raacsiisanaysaa wixii marka adigu hadal aad haysatid ama cudurdaar ah aad rabtid inaad qofka u sheegtid baad kalimada bad ku xijinaysaa. Marka kelmadena koowaad maanta waa I would love to help you but sidaas. Kalimada labaad ee noogu xigta ama phrase-ka labaad ee noogu xigta waxa weeye
It is not a good idea for me to. It is not a good idea for me to. Macnaheedu waxay noqonaysaa ilmaha fikrad fiican aniga inaan sidaas. Haddaba sentence aynu gelino sida aynu ku fahanno phrase-kan sida loo isticmaalo. Waayahay waxaad ka soo qaadaa qof adiga kugu qaali ah oo codsigiisa aadan diidi karin baa wuxuu kaa codsaday wax adiga aadan jeclaysanayn oo wuxuu kugu yidhi let's insult that man and let's see how he react bro. oo macnaheedu noqonaysa aynu cayno ninkaas aynu aragna sida ugu falceliyo walaal. yacni inuu xanaaqo iyo in kale aynu eegno ayuu ka wadaa qofkan. let's insult that man and let's see how he react bro. adna misaad ugu jawaabtay adigoo kelmaddan no aan isticmaalin ee isticmaalaya phrase-kan oo waxaad tidhi it is not a good idea for me to do that with you buddy. It is not a good idea for me to do that with you buddy. oo macnaheedu tahay ilmaha fikrad fiican inaan taas adiga kula sameeyo saaxiib. It is not a good idea for me to do that with you buddy. phrase-ka saddexaad ee inoogu xigta waa not really oo macnaheedu tahay maya xaqiiqdii. haddaba kelmadda not laba qaaba waa loogu dhawaaqaa. mar inaad tidhaahdid not oo sida hadda caadiga ay u qoran tahay, mar inaad tiida aad ka reebtid oo aad tidhaahdid na keliya. not really, not like this, not like that, not really. marka luqadda markii fast looga hadlayo la doonay in fast loogu hadlo always waxaa la isticmaalaa kelmadaha gaagaaban. for example haddii aynu sentence gelino ka soo qaad walaasha baa kugu tiri about the colors bro do you like the white color. oo macnaheedu tahay xagga midabada ma jeceshahay midabka caddaanka ah walaal. about the colors bro do you like the white color. misaad adigana ugu jawaabtay sidan not really, I like the black color sister. oo macnaheedu tahay maya xaqiiqdii waxaan jeclahay midabka black ah walaal. not really, I like the black color sister. haddaba phrase-ka afraad ee inoogu xiga waa probably not iyo possibly not. probably not iyo possibly not labadan phrase ba waxay la macno yihiin kelimadda no. marka inaad tidhaahdid no iyo inaad tidhaahdid probably not ama possibly not waa isku mid oo dhammaantood waxay ka turjumayaan diidmo. intaynan sentence aynan keenin ama tusaalayaal aynan keenin waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo kelmaddan probably. dadka luqadda u dhashay Amerikaanka kelmaddan probably waxay ugu dhawaaqaan qaab kale. qaabka ay ugu dhawaaqaan waxaa weeye probably kelmadaha xuruufta qaar bay ka saarayaan oo waxay ka dhigayaan wax short ah oo gaaban. marka qaabkan ay ugu dhawaaqaan ee aynu islaagno probably iga daba dheh si aad dhawaaqa saxda aad ula keentid. probably hay markaaga isku day oo dheh waan ku sugayaa. probably qaabkan probably ah qaabkan ay Amerikaanka ugu dhawaaqaan ee ah probably qaabka kelimaddan loogu dhawaaqo oo af Soomaali ahaan sida dhawaaqeeda uu dhacayo haddii aan idin qoran waa sidan probably. marka waa probably not. waayahay haddaba intaa kadib aynu sentence English ah aynu gelino si aynu ku fahanno qaabka loo isticmaalo. ka soo qaad saaxiibada ama jacaylkaaga ayaad ku tiri sidan sweetheart do you think that I love with another girl. sweetheart do you think that I love with another girl. oo macnaheedu noqonaysa gacliso ma u malaynaysaa inaan gabar kale jeclahay. sweetheart do you think that I love with another girl. misay ku tiri sidan probably not and I don't even think so honey because I know that our love is too strong. oo macnaheedu tahay maya oo xataa uma malaynayo macane sababtoo ah waan ogahay jacaylkani inuu xoogan yahay. probably not and I don't even think so honey because I know that our love is too strong. haddaba qaabka shanaad ee inoogu xiga waa not to my knowledge oo macnaheedu tahay intaan aqaano way ka baxsan tahay. si kale haddii aynu dhigno waxay noqonaysaa inaad tidhaahdid aqoon uma lihi. not to my knowledge aqoon uma lihi. oo phrase-kan waxaa la isticmaalaa
markii uu qof kugu dhaho waa waxaas ibar ama waxaas iga caawi waxaa sida loo sameeyaa waxaas maxay yihiin aqoon mu leedahay inaad ifahansiisid oo adigana aad tahay isla mar ahaantaas qof aan awood u lahayn ama qof aan waxa aanan garanayn ama qof aan waxba ka fahansanin ayaad oranaysaa kelimadan not to my knowledge. tusaale kale haddii aynu gelino ka soo qaad adigoo wadada maraya qof asna sidoo kale wadada maraya ayaa ku istaajiyey wuxuuna kugu yidhi sister where's the nearest pharmacy around here oo micnaheedu tahay waa xaggee farmasiga ugu dhow meelahan adigana isla mar ahaanta waxaa tahay qof aanan garanayn farmasiga ugu dhow meelahan marka waxaad ku oranaysaa not to my knowledge bro ask someone else aqoon ma lihi walaal qof kale weydii not to my knowledge bro ask someone else. qaabka lixaad ee noogu xigta waa no way no way No way. phrase-kan no way waxay la macno tahay kelimada ah no. haddaba no way waxaa jirta in loo isticmaalo laba qaab. labadaas qaab oo kale ah qaabka koowaad waxaa loo isticmaalaa sidaan soo sheegnay no ahaan ayaa loo isticmaalaa. haddaba qaabka labaad ee no way loo isticmaalaa micnaha labaad ay samayso waxaa weeye waa iyadoo la yidhaahdo ma dhici karto maya ma dhici karto. haddii aynu tusaale u keenno no way marka loola jeedo kelimada no ahaan waxay noqonaysaa for example qofaad saaxiibo tihiin baa kugu yidhi keep in mind buddy that tonight we will go to the party oo micnaheeda noqonaysa saaxiib maskaxda ku hay caawa xafladii ayaynu aadi doonaa. keep in mind buddy that tonight we will go to the party. adigana misaad saaxiibka ugu jawaabtay adigoo isticmaalaya phrase-kan ah no way ayaad ku tiri sidan no way buddy I don't like to go any party oo micnaheeda noqonaysa maya saaxiib ma jecla inaan xafladna aado. no way buddy I don't like to go any party. haddaba markan aynu tusaale u keenno phrase-kan ah no way marka loola jeedo ma dhici karto ahaan qofba wuxuu kugu yidhi hey today I saw your dad in the market oo micnaheedu tahay wariya maanta aabaha suuqan ku arkay. hey today I saw your dad in the market adigana misaad yaabtay oo waxaad isweydiisay warheed aabba soodiga ku ogaa inuu xagga qurbaa ku maqnaa goormuu yimid waad u qaadan laadahay misaad ku tiri no way man stop the lie no way man stop the lie oo micnaheedu tahay ma dhici karto niyo ee judgment no way man stop the lie. phrase-kan no way waxaad isticmaalaysaa markasta wax lagu sheego ama wax lagu yidhaahdo oo waxaa adiga kugu sababa inaad u qaadan waa uu kugu dhaco aad isticmaalaysaa no way ma dhici karto. qaabka toddobaad ee inoogu xiga waa I'm good inaad tidhaahdid I'm good iyo inaad tidhaahdid no waa isku mid. marka phrase-kan ah I'm good originally ama asliyan micnaheedu waxaa weeye waan fiicnah oo iminka haddii qof kugu yidhaahdo are you good ma fiican tahay waxaad ku jawaabaysaa I'm good waan fiicnah in American English oo kelimadan I'm good no ahaan waxaa u isticmaalaa American English Mareykanka ayaa u isticmaalaa. tusaale ahaan haddii aad Mareykanka aad tagtid oo aad meel hotel ama cafeteria aad tagtid oo aad fadhiisatid kadibna miiska aad fadhiisatay biyaha ay ku yaalaan oo aad sii cabtid kadibna uu waiterka meesha ka shaqaynaya qofkan biyaha kan keenaa ama dee cuntooyinka dhigdhiga uu ku yimaado uu ku weydiiyo do you need water oo micnaheedu tahay ma u baahan tahay biyo adna ilaa waxaa tahay qof marka biyo ku filan haysta oo halkaa ay u yaalaan caadi ah misaad odhanaysaa I'm good isna wuu ku fahmayaa oo waxaad ka wadaa maya uma baahni I'm good. sidoo kalena waxaad odhan kartaa qaab kale ah I'm good maya uma baahni. qaabka sideedaad ee inoogu xigana waa saddexdan phrase adigoo isticmaala mid ka mid ah. haddaba saddexdan phrase oo kale ah not this time not today not right now saddexduba waxay ka turjumayaan diidmo oo halkii aad no isticmaali lahayd ayaad saddexdan mid ka mid a isticmaalaysaa. haddaba
tusaale haddii aynu u keeno saddexdan qaabka loo isticmaalo aynu ka horeyno taa hore not this time waxaad isticmaali kartaa time baa laga hadlaya sooma qof baa tusaale ahaan kugu yidhi wal waqtigan hadda la taagan yahay waxaan rabaa inaad waqtigaaga in yar iga siisid marka inamar wax yar la soo qabo adna isla mar ahaanta way ku adag tahay inaad waqtigaaga aad in yar ka goysid hawlo ku yaala awgood marka misaad qofkan ugu jawaabaysaa not this time so how about tomorrow xilliga maya ee ka waran beri not this time how about tomorrow haddaba not today markana aynu tusaale u keenno xilligaad isticmaalaysid not today sida oraadan aan ka dhadhansanayno phrase-kan aan ka dhadhansanayno waxaa laga hadlayaa today maanta laga hadlayaa marka ka soo qaad inuu qof kugu yidhi niyo maanta waxaan rabaa inaad ii timaadid gurigaad igu timaadid oo wax badan aynu isla eegno adna isla mar ahaanta waxaa tahay qof maantadan waqtiga uusan kaa go-in oo busy ah marka adiga aan qofka no aan ku oranin ayaad ka oranaysaa not today maybe later maanta maya laga yaabaa mar kale marka haddana haddii aynu qaabka saddexaad ee ah not right now haddii aynu tusaale keenno qaabka iyadan la isticmaalo ee xilliga la isticmaalo right now waqtigan la joogo ka soo qaad inuu qofku yidhi niyo hadda waxaan rabaa inaan suuq isku raacno ee ka waran misaad adagna uga jawaabtay not right now man how about tonight hadda may niyo ka waran caawa not right now man how about tonight haddaba aynu isla eegno kelimadda sagaalaad ee inoogu xigta not yet micnaheedu waxa weeye maya weli kelimaddan not yet waxaad isticmaali kartaa markii uu qofku yidhaahdo tusaale ahaan waxaas ma qabatay waxaas ma akhrisay ma casheysay oo jawaabtuna ay tahay maya weli maan qaban weli maan akhrin weli maan samayn taas weli markaad isticmaalaysid oo weli ma qaban ma odhan oo diidmada aad raacinaysid aad isticmaalaysaa qaabkan not yet for example saaxiibkaaga kula galaaska ayaa tusaale ahaan ku weydiiyey bro did you memorize your lesson oo micnaheedu tahay waa ma xifdisay casharadaadii aadna misaad ugu jawaabtay not yet maya weli kelimadda tobanaad waxaa weeye never kelimadda never run ahaantii waa diidmo xooggan tusaale ahaan haddii aad qofku tidhaahdid miyo wax lacaga ma ka heli karaa maanta uu ku yidhaahdo never maya never haddaba kelimadda 11aad ee noogu xigtana waxaa weeye nah iyo sidoo kalena nee labadan qaab nah ama nee waa isku macno oo waxay la macno yihiin kelimadda ah no kelimadda nah waxaa isticmaalaa maraykanka badanaa waxaa aada u isticmaalaa black americanka haddii aan sentence gelino ka soo qaad saaxiibkaa baa ku yidhi bro do you love abroad oo micnaheedu tahay wala ma jeceshahay qurba misaad aadna ku tidhi nah man I love my country mayniyo dalkaygan jeclahay nah man I love my country marka nah iyo sidoo kalena nah labada waa isku mid laakiin mostel waxaa la isticmaalaa nah qofka kugu oranaya niyo waxaa mada sameeyey nah man mayniyo haddaba kelimaddan nah waa afsuuq marka kelimadda sideedaba haddii ay afsuuqi tahayna waxaa jirta xilliya aad munaasab tahay inaad isticmaashid iyo xilliya aysan munaasab ahayn inaad isticmaashid sida hore aan uga soo hadalnayba kelimadda 12aad ee noogu xigtana waa nope kelimadda nope waxay la macno tahay kelimadda no waxaa la isticmaalaa wax kasta adigu aad markaa aad diidaysid tusaale ahaan qof baa ku yidhi waxaas ma jeceshaniyo ama waxaa ma samayn kartaa ama waxaas madaa sameeyey nope maya kelimadda 13aad ee noogu xigtana waa hell no oo micnaheedu tahay no hell no kelimaddan diidmada ah ee la macnaha ah no waxaa la isticmaalaa markii uu qof wax kasta adigu aad markaa aad diidaysid uu ku yidhaahdo
tusaale ahaan saaxiibkaa ku yidhi ka waran haddii aanu suuqa aadna caawa saad tidhi hell no I don't have time for that maya waqti ma haya taas hell no I don't have time for that kelimadda inoogu dambeysa ee 14aad iyaduna waxa weeye negative sida hadda ay u qoran tahay negative maahane qaabkana waa loogu dhawaaqaa oo waxa weeye negative in American English negative marka oo waxay la micno tahay totally no kelimadda no waxaa la isticmaalaa markii uu qof wax kasta adigu aad marka aad diidaysid oo ku yidhaahdo tusaale ahaan maadiga waxaa sameynayo negative I didn't maya anu ma samayn marka kelimadda negative waxaa isticmaalaa sanadi sheegay Mareykanka markan kelimadda negative waa kelimadii ugu dambeysay arday maanta halkaas ayuu inoogu eegayaa cashirkeeni ku saabsanaa ha isticmaalin kelimadda no ee isticmaal kelmadahan oo ah kuwa aynu soo sheegnay 14ka aynu soo sheegnay ayaa loo baahan yahay inaad runtii isticmaashaan halkii aad ka isticmaali lahaydeen kelimadda no marka intaa kadib haddii aad channelka cusub tahay oo aadan weli subscribe siin fadlan subscribe saar oo gambarka furo si aad ula socotid markasta video casharaan soo gelay channelka waxay su'aal haysaan wixii tala iyo tusaale aad haysaan insha Allah qaybta commentiga igula soo wadaag iyo sidoo kale haddii ay jiraan wax kelmad ah oo adiga kugu cusub oo aad ka faa'iiday maanta cashirkan haddii ay jiraan iyagana sidoo kale xagga hoose commentiga inoogu xus intaa kadib waxaan idin leeyahay insha Allah waxaynu bilaabnaa salaasa kasta iyo cashir qiimo leh insha Allah arday horta sida balanteena ay noo ahayd inaan salaasa kasta insha Allah aan inoo soo geliyo cashir sidaas ayaan ku balansaneen oo balantu ay ahayd balse runaantii waqtigii waan bedelay oo sabti kasta ayaan insha Allah idin soo gelin doonaa cashir sababtoo ah arday jaamacadeed ayaan ahay oo dhigta weliba kuliyadda medicineka qofkii garanaya kuliyadda medicineka oo garanaya runaantii ma hawl yara marka waxaan filayaa magaranaysa haddii xitaa even aan soo yara habsaamo inaad ii cududaaraysaan marka anigana insha Allah intaan awoodo ma noqon doono qof wax idinka hakrada insha Allah marka waxaad igu ogaanaysaan sabti kasta insha Allah cashir tayaysan oo aad ka faa'iidaan wax badan in insha Allah idin soo geliyo sidoo kalena haddii cashirkan aad ka faa'iiday videogan like sar insha Allah oo sidoo kalena waxaa jirta qof walka ama saaxiibka aad la jeceshahay aqoontiisa luqad ahaaneed inuu kor u qaado la wadaag videoga wanigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hold me close till I get up. Time is